Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh walaalaha garbahayga kusoo dhawaada weelkii dunida iyo waxtarkii bulshada aniga waxaan ahay Xafsa channelka aad naga daawaneysaan waa Xafsa channel alaab barnaamijkan waxaa idin soo gudbisaa islaaniga walaashin Xafsa soo dhawaada meel walba aad joogtaan waxaan Allah subxaanahu wa tacaala idinka baryaa cimri dheer cibaado suuban oo Ilaahay idin siiyo insha Allah waxaan idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan aniga waan fiicanahay alxamdulillaah waxay inoo socday kitaabkeena imtixaanaha ahaa ee la magac baxay baro 100 xadiis hase yeeshee intaan u guda galin muuqaalkayga maanta haddii ay tahay marka ugu horeysay aad channelka soo booqatay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto haddii aad hore noo joogtaan like share la wadaag asxaabtaada nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay wax aad naftaada la jeceshahay la jeclo walaalkaaga insha Allah waxaan rajeynayaa inaad u share garan doontaan asxaabtiina waad ugu mahadsantahay haddii aad subscribe saartay kusoo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub iyo darsigeenii 35aad insha Allah bismillaah can abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam qaal man kadaba calaya mutacammidan falyatabawwa maqcadahu min annaar rawaahu muslim nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay man kadaba calaya qofkii igu been abuurtaa mutacammidan si kas ah falyatabawwa ha u diyaar garoobo maqcadahu meesha uu ka fariisan lahaa min annaari naarta man kadaba calaya qofkii igu been abuurtaa mutacammidan waliba si kas ah falyatabawwa ha u diyaar garoobo maqcadahu meesha uu ka fariisan lahaa min annaari naarta xadiiskan waxaa ka fahmeynaa qofkii nabiga ku been abuurta wuxuu dhahaa amba xadiis oo san sheega misana wax uusan dhihin dhaha nabiga sidaan dhahay qofkaas waa qof si kas ah ugu been abuurtay wuxuuna yiri falyatabawwa maqcadahu min annaar insha Allah waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka fahmi doontaan sidoo kale waxaan rajeynayaa inaad asxaabtiina u share gareyn doontaan guud ahaan halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkayaga maanta waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkayaga ha ilaawin inaad like saarto haddii aad dhameysatay daawashada muuqaalka sidoo kale waad ku mahadsantahay haddii aad subscribe saartay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh